kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka isha wararka TV waana 4 bisha November sanadka 2020 qodobada warka aad ku daawa doontaan waxaa kamid ah doorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabelle oo waqtigeeda laga soo hormariyay maantana ka qabsoomaysa magaalada Jowhar iyo Sheekh Shariif oo mar kale maanta tagaya magaalada Jowhar shirkadaha diyaaradaha oo diiday in ay dhuuso mareeb tagaan kadib weerarkii lagu qaaday diyaaradii uu la socday madaxweyne Qoorqoor xildhibaanada gobolada waqooyi oo ka soo horjeestay qorshaha Cabdi Xaashi lana safteen xukuumadda Soomaaliya inta badan goobihii codbixinta Mareykanka oo xirmeen iyo Imaaraadka oo madaxweynaha Faransiiska ku taageeray gafkii uu muslimiinta kula kacay intaasina daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warka janalka isha wararka TV fadlan haddii aan ugu cusubtaan ugu soo biro oo subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 gazacan halkan ku baahino aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalka share gareeya lagtiin waa inuu muhiim daawadayaal haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran arrimaha la xiriira doorashooyinka Mareykankana markaanu ka hormarno daawadayaal doorashadii dalka Mareykanka gaar ahaan codeyntii goobihii inta badan ayaa waxa ay yihiin kuwa soo xirmay waxaana haatan socota tirinta codeynta doorashada iyadoo laga yaabo saacadaha nagu soo aadan ee maanta ah in lagu dhawaaqo natiijada codeynta doorashada dalka Mareykanka labada musharax ee tartamaya ee madaxweynaha Mareykanka Trump iyo Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka ayaana si weyn loolan adag ugu dhaxeeya waxaana la sheegayaa in natiijada inteeda badan haatan aan la saadaali karin gobolada qaar ayaa labadan musharax natiijada hordhacda ah ay soo baxaya ay ku kala guuleysteen Trump ayaana waxaa la sheegayaa inuu ku guuleystay gobollo ay ka mid yihiin Indiana iyo sidoo kale South Carolina halka Joe Biden uu ku guuleystay gobollo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Virginia, Washington DC iyo sidoo kale Vermont waxaana haatan la sheegayaa in Joe Biden uu ku horeeyo natiijada hordhaca ee codeynta inkastoo aan si rasmi ah loo saadaali karin cidda sida rasmiga ugu guuleysan karto madaxweynaha Mareykanka maadaama si aad ay iskugu dhow yihiin labadan musharax dhinaca kale Itoobiya warar haatan naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal toos ah uu ka soconayo qaybo ka mid ah gobolka Tigreega ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaana ku dhawaaqay dagaal lagu qaado ciidamada gobolka Tigreega waxaana la sheegayaa in dagaalku uu yahay mid marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya qasaaraha lama oga isgaarsiinta qaybo badan oo kamid ah dalka iyo internetka ayaa hawada ka maqan waxaana jirta baqdin weyn oo ku aadan xaaladda haatan ka soo cusboonaatay ismaamulka Tigreeda hase yeeshee isha ayaan ku hayna doonaa waxa ka soo kordha deegaanada ismaamulka Tigreega iyo dagaalka haatan ka soconaya iyo dagaalka uu cilaamiyaba ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed hase yeeshee iminka qodobadayna kale ayaanu aadayna doorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabelle oo waqtigeeda laga soo hormariyay ayaa maanta ka qabsoomaysa magaalada Jowhar dhinaca kalena magaaladaasi waxa ku wajahan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdu hogaaminayo wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay sheegayaan in waqtigeeda laga soo hormariyay doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedkaasi oo loo balansanaa in 4 galabnimo ama 10 saac galabnimo ee maanta ay ka qabsoonto magaalada Jowhar hase yeeshee waxaa laga dhigay 10 subaxnimo ama 4 barqanimo qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa isha wararka TV waxa uu xaqiijiyeen in xalay loo soo diray fariimo ku aadan in doorashada ay waqtigaasi qabsoomayso isla markaasna ay xilligaasi soo xaadiraan xildhibaanada qaar ayaa waxa ay sheegeen inaysan garanaynin sababta arrinkan keentay maadaama kolkii hore lagu wargeliyay in ay galabnimada soo xaadiraan oo doorashaduna xilli galaba ay dhacayso warar kala duwan ayaana ka soo baxaya sababta arrinkan ka dambeysa hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya markii laga warhelay socdaalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed inay keentay in doorashada waqtigeeda laga soo hormariyo madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahna siyaasiga hogaamiye madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa mar kale maanta tagaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle waa sida ay wararku qaar tilmaamayaan Sheekh Shariif ayaana la sheegayaa socdaalku uu ku tagayo magaalada Jowhar inay ku weheliyaan odayaal ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaana la ogeyn ujeedka rasmiga ah ee socdaalkiisa ka dambeeyay inkastoo wararku qaar ay tilmaamayaan in Sheekh Shariif uu ku hoolan yahay arrimo la xiriira sidii uu qanci lahaa beelaha deegaanada Hirshabelle isla markaasna go'aan lagu wada qanacsan yahay looga qaadan lahaa arrimaha la xiriira doorashooyinka
inkastoo Sheekh Shariif tegitaankiisii hore ee magaalada Jowhar su'aalo badan la geliyay ayaa dadka qaar waxa ay wax iska weydiiyeen sababta keentay muddo 15 sano isagoo ka maqnaa magaalada Jowhar inuu tago isla markaasna kulamadii kala duwanaa halkaas uu ka sameeyay kadib oo iskaga noqday magaalada Jowhar laakiin Sheekh Shariif ayaa la sheegaya haatan in uu saameyn xoogan ku dhex leeyahay arrimaha doorashooyinka ka bilowday magaalada Jowhar hardan u dhaxeeya isaga iyo waliba dowladda federaalka ayaana la sheegaya inay halkaas ka taagan tahay halka dowladda oo iska ilaalinaysa gacmo kale oo soo dhaxgala arrimaha doorashada la sheegaya inay xilligan dadejinayso doorashada ka socota magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle arrimahan isbiirsada ayaana waxa ay keentay dhawaan inuu iscasilo madaxweynihii dowlad goboleedka Hirshabelle oo sheegay inuu xilka iskaga tagay isla markaasna uusan shaqo ku lahayn waxa ka socda magaalada Jowhar geesta kalena shirkadaha diyaaradaha ayaa waxa ay diideen inay dhuusamareeb tagaan kadib weerarkii lagu qaaday diyaaradii uu la socday qorqor inta badan shirkadaha dulimaadyada ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa waxa ay joojiyeen dulimaadyadii caadiga ahaa oo ay ku tagi lahaayeen garoonka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug kadib markii al-shabaab ay weerareen diyaarad ka kacaysa garoonkaasi diyaaradaas ayaa waxa saarnaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxaana lagu riday 7 xabadaha baasuukaha kuwaas oo hareeraha ka maray diyaaradda sida wararku ay sheegayaan warar aanu ka helnay saraakiisha amniga ee Dhuusamareeb iyo madaxda shirkadaha ayaa waxay sheegayaan in dhammaan shirkadaha ay diideen in garoonka tagaan waxaana jirin diyaarad shalay tagtay halkaasi ma jirto wax diyaarada oo Dhuusamareeb tagtay waxaana baaqday rakaab badan oo ay ahayd in la qaado ayuu yiri mid kamid ah madaxda shirkadaha ka shaqeeya Soomaaliya ee sida caadiga u tagi jiray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle dhanka kale ma jirto wax wara oo ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadan arrimahani xildhibaanada gobolada waqooyina waxa ay ka soo horjeesteen qorshaha Cabdi Xaashi waxa ayna la safteen xukuumadda Soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwooda ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa waxa ay si adag uga hor yimaadeen dalabkii gudoomiyaha aqalka sare ahaa in xubnaha Somaliland kuma talaya gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka heer federaal ay iyagu soo magacaabi doonaan xildhibaanadan oo shir jiraad ku qabteen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in xukuumadda federaalka ay u wakiisheen inay soo magacawdo xubnaha Somaliland kuma tali doona gudiyadaasi sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa ku eedeeyeen in uu dayacay mas'uuliyadaas isla markaasna uu xaq u lahaa inuu talo ku yeesho heshiisyadii doorashada ee lagu gaaray Dhuusamareeb iyo Muqdisho isagoo matalaya Somaliland war-saxaafadeedkan ay ka soo saareen shirkaas ayaa waxa ay ku sheegeen in maadaama gudoomiye Cabdi Xaashi uu dayacay mas'uuliyadaas uu madaxweyne Farmaajo ku matalayay heshiisyadii laga gaaray doorashada dalka sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa waxa eedan loogu jeediyay madasha xisbiyada qaran oo taageero u muujisay dalabkii gudoomiye Cabdi Xaashi ugu dambeyntiina Imaaraadka ayaa taageero u muujiyay gafkii uu madaxweynaha Faransiiska kula kacay muslimiinta wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Kargash oo wareysi siinaya wargeyska Die Welt ayaa soo jeediyay in muslimiintu ay aqbalaan aflagaadada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron si ay u dhaxgalaan bulshooyinka galbeedka waa sidoo hadalku dhigay isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri muslimiintu waa in ay si degan u dhageystaan waxa uu Macron sheegay isagu ma doonayo in uu go'doomiyo muslimiinta galbeedka waana ku saxan yahay gabi ahaanba waxa uu sheegay muslimiintu waxay u baahan yihiin inay si wanaagsan loo dhaxgalo dadka madaxweyne Macron wuxuu raadinayaa qaab uu ula dagaalamo xaq jirnimada iyo sidoo kale xirnaanta bulshada ma cambaareenayno Faransiiska wuxuu dagaal kula jira Turkiga oo sameynaya waxyaabo aan fiicneen Yurub waxaan ugu baaqaynaa inay ka hortagaan isballaarinta Turkigu ka wada gobolka Imaaraadka ayaana noqonaya dalka kaliya ee muslim ah ee taageeray madaxweynaha Faransiiska guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii aad kala socoteen isha wararka TV fadlan haddii aan ugu cusubtaan nagu soo biir oo subscribe saar channelkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararka 24 saacan halkan ku baahino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka shirgareeya laagtiin waa inoo muhiim daawadayaal waana ku maasantihiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen isha wararka TV